السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال كسو دوادا كنالكيني النقاي ميدي يوتيوب اي فيسبوك بيج او عاد اوغا براتين ورر سبورتس او حقيقة كوسليسان mar walbana ku dadaala inuu idiin soo gudbiyo wararka ugu dambeeya ee sportiska maantana runtii aad u xiiso badan waxa laydinka doonaya kaliya waa inaad ku xirnaataan oo aadan seegina wararka subscribe-ka like-ta share-ta iyo comment-iskana waa dhankiina haddana aan u guda galno barnaamijkeena wada hadallo wanaagsan ayaa u dhaxeeya AC Milan iyo Tottenham oo ku saabsan saxiixa daafaca Japhet Tanganga wada xaajoodyadu waxay ku saabsan yihiin amaah xilli dheer ah iyadoo Milan ay xiiseynayso inay geliso ikhtiyaarka ah inay heshiiska ka dhigto mid joogto ah agaasimaha ciyaaraha ee Tottenham Fabio Paratici ayaa hogaaminaya wada xaajoodyada Milano Paratici ayaa kala hadlay kooxo badan oo ka dhisan dalka Talyaaniga arrimaha ku saabsan dhowr ciyaaryahan oo Tottenham ah kadib markii ay sameeyeen 6 saxiix suuqan kala iibsiga diiradda ayaa hadda ah hagaajinta kooxda tababaraha kooxda Manchester United Ten Hag ayaa yiri wax cusub ma jiro oo ku saabsan Ronaldo waqtiga uu Cristiano Ronaldo ku biiri doono kooxda Manchester United ayaa la arki doonaa iyadoo 37 sano jirkan uu seegay safarkii Thailand iyo Australia sababo la xiriira arrimo qoys xilli aad loo hadalhayo mustaqbalkiisa laakiin Erik Ten Hag ayaa qirtay in uuna sugi karin soo laabashada Ronaldo maya akhbaar cusub kama hayo ayuu yiri Ten Hag oo ka hadlayay xiddiga reer Portugal mar la weydiiyay inuu ka walaacsan yahay in Ronaldo uu sii maqnaado iyadoo tababarka iyo dalxiiskaba uu socdo tababaraha United ayaa yiri dabcan waxaan diiradda saaraya ciyaartoyda halkaas ku sugan runtiina wax wanaagsan ayay sameynayaan qaab ciyaareed wanaagsan ayay ku jiraan waxaana sii xoojin doonaa midaas waana horumarin doonaa ma sugi karo inta uu imaanayo markaas ayaan isku dari doonaa ama uu nagu soo biiraya saaxiib yaal wararkii ugu dambeeyay ee soo gaaray intaas ayuu nooga dhan yahay wixii warar oo soo kordhana kala socda Facebook page-ka iyadoo qoraal ahaan ah ayaan idiin soo dhigi doonaa mar walba wixii soo kordha waadna ku mahadsantihiin sida wacan ee mar walba aad noogu xiran tihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh